السلام عليكم أصحاب فاضل قروح وهذه السلام ملك استو أدونك كجوجتين وفاضل قروح أوفيشيال هدي أنا قوي عصبتها فضلا سبسكرايب صار وانو مهم هدي أهرنا ولا جوجتنا هي وحنا لا يهمر والبقلبي يجي تالين سيد قروح بدن أو أي دير جلسين ما شاء الله عن الله هاي ولا ليه ومهسنتين ويلي قبل بس أسكو جرتين ما هذا علنتين مر والبكمة داله maanta waxaan ka hadlaynaa waa arrin kale oo iyadana ku saabsan eedda arxanlaay ku saabsan maanta qisada aan ka hadlayo waxa waaye waxaan arkay reer Soomaaliyeed oo gabdho iskugu jiro iyo hooyadood oo waxaan ku dhahay gabdhihii loo soo diray xasbunallahu wa ni'mal wakiil shaydaamin oo mashaqadan ku habsatay qoyskan iyo qoysaskii la jaarka ahaa ayaa soo ifbaxday sannado ka hor xilligaasoo alle ku hakiyey meesheeda kadibna la isdhigtay halkaasina looga haraya walow dhinaca weerarku ka imaanaya si lama filaan ah mar kale dib u soo rogaal celiyeen weerarkooduna cuslaaday muddadii ay qoyskan waayeen aabbihii bilaa sababta uga cararay ilaa iminkana xaggooda u soo dhaqaaqila xitaa haddii ay dhacday masiibo maanta kulmisay dadweynihii xaafadda ehelada qoysaskii jaarka la ahaa ee guryahooda galaafsaday debkii cagta soo mariyey dhismaha ay degganaayeen qoyska keligooda jaaniska lagu hayo maadaama laga dhex saaray odaygii rajada laga lahaa cidda sixraysana ay tahay gabadha iminka odayga uu la nool yahay ee walaaca ka qabta inuu sixirkeeda ka burburo dabadeetana dib ugu laabto ninkeeda reerkiisii weynaa ee uu ka soo cararay hase yeeshee dhacdadan waxa ay rumayn waxaan arkay reer Soomaaliyeed oo gabdho iskugu jiro iyo hooyadood oo waxaan ku dhahay gabdhihii loo soo diray xasbunallahu wa ni'mal wakiil shaydaamin oo afgooy looga soo sameeyay oo waxaan ku yiri gurigoodii laga gubay oo waxaan ku yiri waxa siyaas sameynay ma taqaanin eedda arxanlaay oo eedoy adigu gadaalaab reerka ka soo gashay gabdhahan ayagoo dhalan oo waxaan ku hooyadood la qabo oo dhaqmayso ayaaba gadaal ka soo gashay maxaa ku waalay oo maxaad uga masayraysaa oo maxaad wax ugu quurin risqa adiga aa cunaysid iyaga kaama cunayaan risqa ninkaaga uu ku siinayo adiga uu ku siinayo kuwaas kale ma cunayaan iyagana risqooda cunayaan adigana risqaaga cunaysaa eedda arxanlaay bal fiidiyooga waxaan ku waa ila arki doontiin adinkuna clip yaraan ka soo qaadanaynaa iyagoo gurigii laga gubay oo Sheekh Rushe yar oo waxaan ku dhahay oo quraan saarayo oo waxaan ku dhahay reerkii gurigii dambas biday oo ka noqdaan ku dhahay dambas biday oo ka gubtay waxay dhaheen gabdhihii waxba laga kor hadlaa ilaayo ceeb astur hadda koorna saasan u dhageystay gabar kale inaan yar oo iskuuleey oo quraan la saarayo markaas Sheekh Rushe ay weynaa waay markaas waxay leedahay biya meel ugu shubayo biyaha waxaan rabay islaanta bahweynta nacbahayo inay cabto anigu gabadha yartaan waan jeclahay gabadheedan waan jeclahay gabadha ninkaygu waan jeclahay laakiin islaanta oo gabadhii hooyadeed waaba nacbtay maxaa inanta yar ku jeceshay inanta yar biyo cabtay wixii baa ka dhaxlay xasbunallahu wa ni'mal wakiil eedda arxanlaay reerka islaamid intaa soo gasho adigu reerka islaamid intaa soo gasho haddana ha ula dhaqaaqin fal iyo fataafilow bisinko wallahi Soomaalida waa ma garanayo Soomaalida maxay cadow iskugu yihiin maxay isku arki karin naagtu markii naagta ama taweyn ha ahaato ama tanyar ha ahaato mar walba wax shaydaan oo raali ka yahay maxay ugu dhaqaaqaan dumarka Soomaaliyeed waxaan shaydaan raali ka yahay maxay ugu dhaqaaqaan oo Ilaahay raali ka ahayn oo waxaan ku yiri qofka bini'aadanka dhibaataynaya maxay ugu dhaqan bal naagtaas hadda afgooyay tagtaalna ilmaha eedada u tahay ay ugu soo sameysay inay reerkaba dukumtaankum ka dhigto gabdhihii yararka haya hadlaaya anaka waana la soo diray meeshay degantay hataa sheegayaan ay leeyihiin ilmaha eedadood waa aabahooda qaba halkaasay degantaa xaafadda noocaasa ilaahu ceeb astur xasbunallahu wa ni'mal wakiil ilaahu qof bini'aadan ha nagu sababin xasbunallahu wa ni'mal wakiil ilaahu shaydaan uusan adeegsan oo la yaabo dadkan marka bal asxaabi adikuna ila soo qiimeey fiidiyooga waa arki doontiin waxaan ku dhahay Sheekh Rushe yar oo quraan saaray waxaan ku dhahay ma sha Allah reerkii guriga ka gubtay xataa wuu caawiyay ma sha Allah waxaan ku dhahay lacag yar oo siiyay isagana Ilaahay sheeqas ha barakeeyo ma sha Allah sheeqas waxaan ku waa sheeq yar oo dadaalay waxaan ku dadka quraan saaray ma sha Allah wallahi waxaan ku dhahay intuu quraan saaray oo gurigooda ugu imaaday meel guriga wuxuu noqdaan ku dhahay il ceersila
dadkii waxay noqdeen ku dhahay dad qaxooti ay ka dhigeen ana ka gubnay ولا حول ولا قوة والله بالله أدونك أنا بإسكا وح كلابة أدونك أنا ما ركتين أنا بإسكا وح كلابة صومالية إلا وغير كيس نوافج شرتي سنموتي إلا وغير كيس نوافج سنرشتي سنموتي ضدكي يكون بابا وحال اسكو ديبو مد لاسكو ديبو مد ولالكس aan arki karin mid walaalkiis dilaya mid walaalkiis wax u soo sameynaya dadka wax sameeyana waxa la hoostiina ka hela bismillaahir rahmaanir rahiim iska dhaafa qof bini aadana ku maqan ilaaha u jeedo oo qof bini aadana xasdaaya oo qof bini aadana ku mashquulaya oo qof bini aadana aan wax u ogolaan risqa Allah ku qoray risqa Allah qof walba risqa Allah u qoray marka dumarka Soomaaliyeedna waxaan leeyahay isku naxariista ninka hadaa adigu ka soo daba gashay iyo hadii uu ka daba keenaba qof walaalka ah waxba ha ku sameyn khalaas hadii asfahmo waysiin kala dheeraada marka saxaabay hadal yaan idinku daalin fiidiyowga soo daawada idin leeyahay dhac subscribe kana naga baqin waa Faadmo Qurux official assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu abooda qaba ya xagee joogta naagta Carafaad joogta ya Carafaad joogta maxay ku magta reerkan maxay ka rabtaa ii sheeg hooyadooda necebta